dhibana Khadiija Cabbaas Cismaan waa hooyo Soomaaliyeed ee haysata 4 caruur ah waxa iyadoo xanuunsan laga keenay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay xanuunsanaysaa muddo hal sano ah waxayna dhakhaatiirta isbitaaladu ay sheegeen in ay la xanuunsanayso Khadiija Cabbaas xanuunka kansarka oo ka haleelay caloosha iyagoo tilmaamay in ay kaga taalo caloosha buro kansar ah dhibana Khadiija Cabbaas ayaa ka soo jeeda qoys sabool ah oo la daalaan dhacaya nolosha waxayna dhakhaatiirta isbitaaladu ay sheegeen in dalka gudihiisa aan waxba looga qaban karin waxayna tilmaameen in wadamada India iyo Masar wax looga qaban karo cudurka hayo Khadiija dhibana Khadiija Cabbaas Cismaan ayaa ka codsatay bulshada Soomaaliyeed in ay ka caawiyaan sidii ay u heli lahayd caafimaad dalka dibadiisa Khadiija Cabbaas Cismaan oo baarguraad deganahay oo cudurkan laga sheegay oo ay doctor aan tahay wax kuma qaban kareeyeen tani dibadda waxay joogaan waxa rabaa inay kaalmayaan oo jigsi aan tahay u qabtaan xanuun iska dhibanahay in waxay qabtaan jeclaa kharashna ma haysto haleeday Hindiyo iyo Masar wax ku qaban karto waxay qaban kartay walaali hooyo Xaawo Cabdi Cali Gaashaan oo ah hooyada dhashay dhibana Khadiija Cabbaas Cismaan iyo habaryar Safiya Yuusuf Maxamed oo ka hadlay xaaladda caafimaad ee bukaanka ayaa ka dalbaday dawladda Soomaaliya ganacsatada bulshada qeybadeeda kala duwan in ay ka caawiyaan sidii gabadhan xanuunsanaysa looga heli lahaa caafimaad dalka dibadiisa maadaama aysan awoodin iyagu inay ka bixiyaan kharashaadka ku baxaya dadweynaha Soomaaliyeed waxaan codsanayaa inay gabadhaas iga xanuunsan tahay aan maraayo dhowr isbitaal alay leeyahay waxna ma ka qaban karna leeyahay koow digfeer aan ka bilaabi digfeer kadibna waxaan geeyay isbitaal ku yaalo sayidka agtiisa kansar waa leeyahay wax ma ka qaban karni meel kastaan geeyay wax ma ka qaban karni oo leeyahay isbitaal oo waxaan geeyay hadan albir la dhahay albirku wuxuu yiri inaad geeysid kan Hindiya iyo Masar meel kale daawadeed ay taal ma laha daawad magac meel kale daawadeed taal ma laha leeyahay daawadiin aan awoodin aan heli karin raditaankii Masarta aan ku tagalahay ama Hindiyada aan heli karin aan qarashaysan aan maskiin ahay oo iska dan yar yahay hada dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa inay gabadhan si meesha lagu geey lahay inay wax iga qabtaan hadii Ilaahay dartiis muslimnimo Soomaalinimo daraadeedan codsanayna in wax loogu qabto Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho